farxadeeda ilaahay amarkiisa xaaskaygu ilaahay geliyay marka iyada faraxsan tahay marka iyada la iga farxin karto iyada la murjin karto aniga laakiin xaaskayga waxaan ka jeclahay inay hadallo macaan igula hadasho waxyaabo dooqiga ka hadla Soomaan inay ila kaftanto waxa ay kuugu baxdo inay inta badan aan ii baahato oo aan wax u qabto saddexdaas wallahi qofba farxadiisa ilaahay meel ku xiray qofba si farxad waarka aadi laakiin ani farxadeeda ilaahay amarkiisa xaaskaygu ilaahay geliyay marka iyada faraxsan tahay marka iyada la iga farxin karto iyada la murjin karto marka qofba farxadiisa ilaahay meel u geliyay ani xaaskaygu farxadeeda ilaahay geliyay labadiinu waxaan idin leeyahay dabcan wada noolaada oo wada jiro oo reerkii hadee weligood wada noolaada ilaahay ha idin kaga dhigo amiin ma horta way wanaagsan tahay in la maana la noqdo la isjeclaado hada inagu waxa jilayna boyfriend iyo girlfriend ma aha waa xaasi iyo maxaa la sheegayseegeedii marka waxa ugu wanaagsan ee dunida la sameesto wax walba waxa ka horeeyo waa marka hore nolosha aaskaaga gurigaaga ma qurux badan yahay gurigaaga ma dhisan yahay gurigaaga farxad ma ka jirtaa xaaskaaga ma ku qanacsan tahay ilmahaaga ma ku farxayaan marka inta soo hagaajiso kadib ahol adduun loo soo jeesan karaa because wax walba sariirta aad ku seexanaysa hadaan marka hore soo hagaajinin ma hagaajin kartid wax kasta oo banaanka yaala marka hadii gurigaaga iyo reerkaaga iyo noloshaadii rasmiga ah marka soo dayacdo wax walba sidaas oo kale kaaga soo dayacmaya laakiin wax walba marka qanaacada noloshaada ka taliso wax walba ku ducada xaaskaaga kugu hagaagayaanba marka waxaan sameeynayno waa uu iska foorfan yaani inaan sawir isla galno inaan yaani beejkeena soo dhigano inaan xasuusiyo sameysano wax anaga gaarno aan jecelnahay laakiin ma aha wax yaani jilitaan ay dadka loo safaasho dadka loo sameeynaayo ma ahan waa weynagtahay markii maxaa la isha guriga iyo marka laga hadlaa dadka ayagu markayna arkaan kaliya tusaale ahaan noo soo qaadan karaan laakiin tusaalaha dadka noo soo qaadanayo waxa ka wanaagsan tan anaga naga dhaxeysay iyo nolosha qanacsanaanta iyo isfahanka anaga naga dhaxeeyo ee guriga ka jira ka weyn marka aad soo sameyso noloshaada khaaska ah marka soo xaliso noloshaada khaaska ah farxad ka soo sameyso kadib wax walba dadka kugu hareeraysan oo dhan farxad waa siin kartaa